baarta dhakhtaradaan u keenay dhakhtaradii markii caafimaadkeeda baartana waxay dhahay gabadhan caafimaadkeeda waa mid fiican laakiin midaan way soo indha adagta waxay taagan tahay haddii aan ku tusi lahay aabaheed wuxuu qad ahaan u soo siiyey waa yaabi lahayd mar labaad intay wacdo kuwii ilmaha qaadayay waxay u sheegay inay ugu imaadaan iskuulka xoogaa kadib midkii aabaha ay isagoo shaqadiisa iska jooga oo iska shaqeysa ayaa la soo wacaa waxaana loo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan oo iskuulka u yimaado markii uu yimaado waxay ku dhahayaan waxaa noo sheegtaa sababta ay gabadhaadu uga eg tahay qof caata isna teleefankiisa waxuu ka tusaa inay gabadhan xanuunsan tahay ayna daawo u socoto markii ay arkaan cadeemaha uu tusanna waxay ku dhahayaan waa ka xunnahay inaan mar labaad kugu qaldannay weyna isaga tegayaan macallimadii waalatay mar labaadee waxay bilaabaysaa qayladeedii laakiin markaan gabadha yara aabeed waxay ku dhehaysaa anigaa wax walba fahansiinaya macallimadda waxay dhehe aniga markii aan dhigi jiray iskuulkaygii hore ardada aan iskuulka la dhigto way i dhibaatay jireen markii ay ogaadeen in aana haysan aabba saxa waxayna igu tilmaami jireen inaa qashinka liga soo helay maalin maalmaha ka mida waxaan diiday inaan iskuulka aado aabahina waxaan u sheegay dhibaatooyinka aan iskuulka kala kulmo isaguna isla markii go'aan uu hore ka qaatay magaalkii dhanna waa isaga soo guurnay anigana maalintaas kadib waxaan ogaaday inaan haysto aabba fiican haddana sidaana meesha u joognaa midaan sheeko dheer oo looga sheekeeyey kuwaan waxay ku dhehaysaa anigooni ogeynani xukumiyey waana ka xumaay haddana qaladka aan idinka galay cafis ma laho laakiin waxaa rabaa inaa igu qaadatiin iyaguna muku adkaynayaane way iska cafinayaan muuqaalkana intaan oo ku ekaya hadda halkaas soo gaarta leegnoo saar